adaa markaa mas'uul ka ah hab dhaqankaaga si aad u fikirayso si aad wax uga falcelinayso waxaas oo dhan adaa ka boosa laakiin maxaa saameeya hab dhaqanka iyo hab fikirka qofka saddex shay baa saameeya qolooyinka ingiriisku waxay dhahaan 3 E's saddexdaas shay waxa weeyaan deegaanku qofku ku nool yahay waxbarashada iyo nidaamka waxbarasho qofku helay iyo waxa la dhahaa khibradii waa aragnimada nololeed ee uu qofku leeyahay saddexdaas shay baa saameeya hab dhaqanka qofka sidoo qofku u dhaqmayo sidoo wax uga jawaab celinayo iyo sidoo u fikirayo iyo sidoo u arkayo qadiyadaha iyo dareenada kala duwan iyo ashyaada kala duwan ee intuu nool yahay qofku uu arkayo waxaan ku bilaabaynaa ta koobaad oo ah deegaanku sidoo saameyn ugu leeyahay hab dhaqankayga hab fikirkayga iyo sida aan anigu wax u arkayo iyo sida aan uga jawaab celinayo wax deegaanku waa marka la isku wada geeyo de waa uu badanayaa oo tirabeel buu noqonayaa oo waxa kamid ah deegaanka waxa kamid ah gurigii oo meesha waqtiga ugu badan ee noloshaada aad ku qaadato waxa kamid ah iskuulkii oo isaguna de aad akhyaartii kula da'da ahayd ama culayskii ama isa saameyntii isku da'du ay ka imanayso oo peer pressure baa la dhahaa oo qofka kale ee iskuulka kula fadhiyay boqolka qof ee iskuulka aad wada dhigatiin haday yihiin dad wada xagga xun wax ka sheego xagga xun wax ka eega way yar tahay sida iyo kartida iyo probability aad ku noqonayso qof si fiican u fikira si fiican wax u arka nolosha dhinaca fiican ka eega waad kaanaysaa way waxa jiraysa saameyntii faca oo faca ba ku saameynaya adna waad saameynaysaa waxa kale oo soo hoos galay media saxaafadii telefishinadii wargeysyadii filmadii waxyaabihii ayaa soo dhaxgalaya iyaguna media lagala socday waxa soo hoos galaya political environment nidaamkii siyaasadeed iyo deegaankii siyaasadeed qofku ku dhex noolaa waxa soo hoos galaya qofku nidaamkii bulshadu ku noolaa system of life ama lifestyle nolosha qaab nololeedka ay ku nooshahay bulshada baa soo hoos galaya waxa soo hoos galaya i'tiqaadkii aaminsanaantii qofka iyo dhaqankii baa soo hoos galaya waxa soo deegaani wuxuu qaabeynaya sidaad wax uga jawaab celin doonto iyo sidaad wax uga jawaab sidaad wax u arki doonto iyo sidaad adu u dhaqmi doonto sidaad qaab nololeedka noloshaada ay u taagantahay ay ka qayb qaadanayaan haddaba deegaanku sidoo u saameeyaa hab dhaqankaaga intaynaan jawaabta gelin waxaanu ka horreysiinaynaa qofka oo yeesha hab dhaqan wanaagsan iyo qofka oo yeesha hab dhaqan iyo khuluq iyo edeb xun ama sifo u dhaqmay sifo wax u arko oo liidata labadoodu maxay natiijadoodu kala noqonaysaa natiijada koowaad ee qofka hadduu positive attitude ama hab dhaqan iyo aragti wanaagsan yeesho ama falcelin iyo ka jawaabid iyo qaabilid wanaagsan leeyahay wuxuu helayaa qofku ta koowaad noloshiisa uu ku raaxaysan doonaa talabaad wuxuu helayaa korriin shakhsiyadiisu way kori doontaa awood bay yeelan doontaa wuxuu ka kori doonaa saameynta ay dadka kale keenayaan dhaliilaha dadka kale u soo jeedinayaan niyad jabin maayaan waayo wuxuu leeyahay qofkani awood shakhsiya had iyo jeer wax kasta oo dhaca way ka farxin doonaan isagoon qof kale u iman ama isagoon shay u iman ayuu iska farxi doonaa qofku ka raadin maayo farxadda iyo deganaanshaha qalbiga iyo qaninimada iyo hodannimada shakhsiyeed ka raadin maayo ashyaa iyo shayo sidii nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri nabigu alqina qina nafs qaninimada iyo hodannimadu waxa weeyaan waa ta qalbiga waa ta nafta waa ta qofku gudaha ka dareemayo taasuu qofku heli doonaa noloshiisa uu ku raaxaysan doonaa asxaab wanaagsan buu heli doonaa oo inagii maalintii hore sii sheegnay we attract what we radiate waxaynu inagu soo shiidanaa oo deegaankeenna mar walba ku xeeran oo nolosheenna mar walba buuxiyo ag taagan oo ama saaxiib ama qoys ama dad qaraaba ama xidhiidh aynu la yeelanaynaa oo markasta deegaankeenna ku badanaya dad inala dareena oo waxa inaga baxa dareenkaynu sii dayno rabitaankeenna kula mida soo daynaya waa qaacido nafsiya oo qofku siduu dareemayo qof la dareen unbuu la saaxiibi haddaad nin wanaagsan tahay dee nin muqayiloo canka kuusa maalin walba oo cankani weynaaday uu jilcay dee la saaxiibi maysid haddaad gabadh suuban oo saxan tahay oo kuwii cabdiqani mandeella ka sheekeynaye dee xijaab xidhatiyo quraan xafidiyo xadiis barataay xijaab xidhatiyo xulkii dumaray kuwii nebigu kuwii yidhi cabdiqani mandeella haddaad tahayna dee la saaxiibi maysid tu badeecadda qurquriso burbur kaga siisa waa isku dareenba matiin qofba dareenkuu sii daynaya dareen la miduu la saaxiibaya waxay hoos galaysaa qaacidada psychology aayaddii qur'aanka ahayd wadayibuuna lidayibaati wadayibaati lidayibuun ilaahay ragga wanaagsan wuxuu u diyaariyey dumar wanaagsan
dumarka uu wanaagsan ilaahay wuxuu siin doonaa rag ugu wanaagsan ma dhacayso intaynu noolnahay dumar wanaagsan oo sharaf leh oo dabeecad wanaagsan leh oo diin leh oo dhaqan wanaagsan oo edeb wanaagsan oo ixtiraamka iyo dadnimada iyo damiirkaba intaaba ilaahay ugu deeqay ilaahayga garanaysa salaadeeda tukata xijaabka xidhata ixtiraamkii qadarka taqaana aan PhD ku haysan ka sheekaynta dadka kale dad sidaa tahay laasim ma heli doontid nin xun oo ku bahdila oo noloshaada ciil iyo cadho ku rida heli maysid laakiin haddaad taqaano jiir xayraanka iyo meelaha luqluq galida definitely waxaad heli doontaa nin luqluq gala adiguna haddaad tahay nin mirqaamo oo dee cillada aanan ka sheekayn karin oo ka xishoonayo ku kackaca waxaad heli doontaa gabadh kula mida oo subxaan allah nacuudu billah ilahayna inaga badbaadi dadku waxay inta badan ku wareeraan oo noloshoodoo dhan ay ku khalkhashaa inta badan waqtigii kaga lumaa naftooduna ay u ciilootaay mar walba farta ka qaniinaan dhexda ما هيست صاحب وناكسن ما هيست صاحب تاجرة ما هيست قف نولش يلا وداعة ما هيست قف نولش كعيل وضع حمان تيدا ومرجع يلا دريمة فرحة فرحسن يقف يلا دريمة قف والبو خداع بيقول لك عيا وقف والبو يبرنيا بلون تيجي تبينيا قف والبو ويبهدليا قف والبو ينية تبينيا قف والبو حاجة دم يجي قنينيا قفنا يمد عضها وحاسور دم بعضها صوت عادي وهذا دون صاحب وناكسن عادي ونقص صاحب وناكسن